waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta ku xiran janaalkeena. Fiidiyogan waxaan si live idin tusayaa aniga oo la baxayo lacagta Sweet Coin. Sweet Coin lacagteeda wixii ka dambeeyay 13 September lacagteeda waxay bishii September say ballantu u qaadeenba waxay lacagtooda waxay keeneen cryptocurrency lacagtoodana cryptocurrency ay noqotay. Soo marka qof walbeeta app ayay sameeyeen gooni ah oo qofka markuu isdiiwaan gelinayna uu tacliimaadkeedii la rabo inuu sii save garaysto maxaa yeelay waxaa u baahan tahay tricks oo ah code kaasoo kuu sahlay inaad appkani si fudud ah usoo dejisato. Soo marka Sweet Wallet ayaa la sameeyey. Sweet Wallet kaas ayaana lagula bixi karaa lacagta cryptocurrency ah. Marka sidaad arkaysaan hadda awal kunkii stable la qaado wuxuu marayay in aad hal xabo oo Sweet Coin in lagu siiyo maanta wuxuu marayaa 1068 steps marka mar walba waqtigeeda kaleento way isii siyaadaysaa maxaa yeelay lacag real ayay noqotay oo markiiba la waxay shirkadda marka nidaam ayay samaysay video ayaan dabcan uga sharxay arrintaasi oo aan ku sheegay videogan ayaan wax walba ku dhameystiray oo 13 daqiiqo soconaya run ahaantii marka inta badan dadka su'aalooyin waxay isoo weydiiyaan videoga dhexdiisa ku wada jiro oo aan sharxay marka videogan qaybta withdraw kuma aan soo dirin maxaa yeelay weli qaabkaas withdrawga loola baxaayay markaas maanan ogeyn hadda ayaan ogaaday aniga ayaana tajribadii sameeyey oo lacagtii la baxay dhowr mar la baxay hadda laftirkeeda xataa lacag ayaa igula jirto oo aan la baxay igu jirto appka kula bixi doono shirkadda exchange KuCoin in badan aad taqaaniin videoyaal badan aan ka sameynay shirkadda KuCoin waa shirkad exchange ah oo cryptocurrency ka shaqeyso shirkaddan KuCoin ayaa la yiraahdaa in ka badan 20 milyan oo qofood ayaa isticmaasho marka markii laga hadlayo shirkadaha cryptocurrency ka shaqeeyo waxay ku jirtaa 5 shirkadood ugu waaweyn ay ku jirtaa waxayna ku taalaa dalka Singapore soo marka shirkad fiican waaye marka lacagtan Sweet Coin waxay ku jirtaa KuCoin ay ku dhex jirtaa soo marka lacagta ayaa waxaan ka xawilaynaa walletkeena Sweet Coin waxaan u xawili doonaa KuCoin ka bacdina lacagta waxaan ka dhigan doonaa USDT steebyadaas oo dhan ayaa idin la mari doonaa insha Allah anagoonan rabin inaan waqti badan idinka dayacno oo waqtigiina macnaha inaan ka faa'iideysano aan rabno marka insha Allah muuqaalkan hadduu ku soo gaaro muxtawahan oo ah Soomaaliya oo kale ma ku arkaysid YouTube-ka sabab darteed waxaan ka codsanaynaa inaad videogan like siisto sidoo kale inaad subscribe noo saarto si aad wax walba oo macluumaad saas oo kale aad ula socotid insha Allah sidoo kale haddii ay kugu adag tahay in aad lacagtan Sweet Coin aad bedesho oo processkaas dheerka oo la marayo aad awoodin inaad marto ah in inta laga xawilo la geeyo KuCoin kadibna KuCoin laga saaro kadibna toos loola baxo haddii aad Soomaaliya joogto waxaa jirta muuqaal aan ka sameyno ah shirkadaha cryptocurrency sida lacagta loola bixi karo ay EVC ahaan loola bixi karo iyo ayadoo ah maaragtay ama saad ama isahal soo marka anaga ayaa nala soo xiriiri doontaa insha Allah meesha nagala soo xiriireysana qaybta description-ka ayaan idinku reebi doonaa macluumaadkiina oo dhammaystiran insha Allah like-ta naga iloobin aad ay muhiim noogu tahay videoga aan gudaha u galno okay shirkaddani nidaamka ay samaysaa waxa uu yahay awal shay lacagtii waxay u kala saartay laba qaybood ay u kala saartay boqolkiiba 10 automatic waa ay fasaxday boqolkiiba 90 kale soo hartayna waxay ballan qaaday in ay ku soo saarayso muddo 24 bilood ah in ay kolba in ay ku soo fasaxayso marka anaga hadda qiimaha inta noogu jiro ayaan la baxaynaa oo dhan 49 47 soo marka si aan wax walba iskula socono waxaan idin geynayaa KuCoin-kayga hadda Sweet lacag ayaa igu jirto marka qiimaha hadda igu jira ayaan rabaa inaan idin la wadaago lacagaha kaleento ma raba inaan sii faahfaahiyo marka laakiin muhiimadda waxaa middan kaliya Sweet baa inta kale waa idinka xiray soo marka sa arkaysaan waxaa igu jira 92 xabo iyo 82 ruruq ay igu jirto 92 82 okay ila socda waxaan soo koobi garaysanayaa address-keeda ayaan soo koobi garaysanaa deposit ayaan dhaxa ka bacdina Sweet ayaan raadinayaa halkan ayaan ku qoraa Sweet economy oo lacagta magaceeda ah ka bacdina waxaan soo koobi garaynayaa kadib wuxuu ii soo saarayaa laba shabakad ayuu ii soo saarayaa shabakadda koowaad waxaa waa Ethereum iyo RC20 shabakadda labaadna waxaa waaye Near marka waxaad soo qaadanay middan hoose ee Near ay ku qoran tahay Near protocol maxaa yeelay
blockchain-kaas ayay u isticmaalayaan oo raqiis ah. Shabakada kale xoogaa waa Ethereum, shabakad waxay santaa marka adiga waxba nothing kuma khuseeyo shabakadaas. Waxaa ka soo qaadani midda ay ku qoran tahay near, haddii kale lacagtaada meel khaldan ayay ku dhacaysaa. Midaas iska ogow, waa blockchain-ka lacagtaada marayso. Okay, koobi ayaa soo leedahay, kabacdina waxaad soo aadaysaa abka ay kusoo laabada, kadibna waxaad taabanaysaa meeshaas ku qoran tahay transfer, kabacdina waxaad kusii dhufanaysaa sendi markaa ku dhufato halkan ayaad ku dhufanaysaa, farta ayaad ku hayna cabaar, kadibna paste ayaad ku leedahay. Okay, adresska ayaa isku hubinaysaa marka leento, ereyga u dambeeya waa 3dc. Okay, marka intaas aa marayso meesha calaamada oo okayda oo taleefankaaga ah, macnaha interka camal ay ka tahay keyboardkaaga uu ka yahay interka, ayaad farta dhag ku siinaysaa. kabacdi search ayuu sameynaa dhag, wuxuu leeyahay we found a wallet with this name, magacan waa helnay. kabacdi waxaa leedahay continue ayaa leedahay. continue markaa la dhahdo kabacdi waxaa dhahdaa maximum ayaa dooranaysaa. maximum markaa doorato kabacdina waxaa leedahay continue ayaa leedahay. kabacdina waxaa leedahay confirm and transfer. kabacdi sending ayuu leeyahay, waa sugaynaa daqiiqado, kabacdina lacagta confirm ayuuna siinayaa. isla markiiba hore ayuu wuxuu naga siiyey congratulation, sweet sent successfully. Okay, markii aan aniga ku laabto appkayga, meesha waxaa jirta oo lagu ogaanayo lacagta inta ay blockchain-ka xataa soo gaarin, shirkadda soo gaarin. shirkadda soo sheegtay waxay ballan qaaday in 3 blocks markii lacagtani ay confirm gareeyaan inay lacagta automatic ugu soo dhacayso. laakiin meeshaas kore ayaan farta ku dhufanaya, waxaan intusay inay lacagtani hawada kusoo jirto, insha Allah ay kusoo jirto hawada. Okay, saa arkaysaan dhowr jeer hore ayaan lacaga kala baxay, weliba aysan soo gelin, weliba soo gelin, waa sugaynaa insha Allah. ad arkaysaan waa ay soo gashay 49.47 aniga aan soo xawilay, waa ay soo gaartay. waana arkayseen waan soo diray 49.47 inta ayaad indhihiina ka aragtaan. halkaana saa arkaysaan 49.47 si automatic ah ayay inoo soo gaartay. Okay, lacagtani marka maxaan sameynayaa? horta fiiri, markaad qaybta trade-ka ayaad tegaysaa, halkan ayaad ku dhufanaysaa meeshaas kore, kadibna waxaad raadinaysaa magaca sweet. ani hadda waa ii joogtaa dabcan, laakiin adinka ayaan rabaa inaan indhihiina idinku tuso. Okay, meeshaan markaad joogto, horta lacagta sweet coin aa wadato waa inaysan ka yaraanin 100. macnaha hadday 100 ka yartahay ma sarifi kartid. yacni nidaamka u dejisan waa shirkaddan KuCoin, macnaha 100 ka yar haddaa wadato, macnaha waxa waaye waa ku aali kartaa le bas. 100 markaa soo gaarsiiso, markaa 100 xaba aad haysato sweet coin usoo xawilo, KuCoin usoo xawilo, macnaha intaasna ila wadaaga. sidoo kaleeto haddaadan KuCoin aadan lahayn, waa sahlan tahay. KuCoin waa samaysan kartaa, kaliya linkiga qaybta description-ka ayay soo darayaan, linkiga saxda ah waad ku dhufanaysaan, kabacdina waa isdiiwaan gelinaysaan. isdiiwaangelinteeda 5 daqiiqo idinkama qaadanaysa. emailkiina aad gelinaysiin, kadibna magaciina bayaanaadkiina gelinaysiin, kadibna adinkoona accountkiina wax verified ku sameynin, passport iyo documenti gelin ayaad account samaysan kartaan. anigaba accountkan hadda ay isticmaalayo is not verified. inta ayaa indhihiina ayaa idinku tusayaa. meeshaas maxaa ku qoran unverified ayaa ku qoran, laakiin accountkiga Binance waa verified waaye. marka shirkadda KuCoin iyo Binance farqi u dhexeeyo taasna waa kow. sidoo kale KuCoin waxay ku fiican tahay $1 haddaa wadato meesha waa ku trade garayn kartaa. laakiin lacagtan sweet coin shuruud waxay ku xujeeyeen inaad 100 xabo ayaa ugu yar oo laga gadi karo. Okay, meesha marka qaybtan waxaa ku qoran buy, qaybtana sell ayaa ku qoran. qaybta sellka ayaan farta ku dhufanaa. markaa ku dhufto 100% ayaan dooranaa. halkan marka waa price-ka, qiimaha aan rabo inaan geliyo. meeshani qaybtani waxa waaye waa dadka rabaan in ay maaragtay ay iska gadaan oo qiimo ayay ku doorteen oo limit ah. halkaana waa dad rabaan inay gataan oo qiimo ay ku doorteen. marka waa trade waaye, dadna way gadanayaan, dadna way iska gadayaan. marka wax lacagta marna ay kor ugu kacdo marna hoos ugu imaato waa sidaas. Okay, marka qiimaha waxaa sameynaysaa, aniga hadda ma rabo inaan qiimahan aan ku gado, marka waxaan sameynayaa, waxaan ku set up garaysanayaa in haddii ay gaarto 30 haddii ay gaarto in aan gado ayaan ku save garaysanaa. Okay, marka waxay noqonaysaa qiimaheygii oo dhan. Okay, dabcan saa arkaysaan meeshaan 92 bas ayaa ii yaallo.
okay sidee arrintaas ay ku dhacday anigana qiimaha ah maxaa yeelay lacagtani qaybtii waxay joogtaa haddaan assetka usoo laabano qaybta mainka ayay joogtaa marka waa inaan keeno qaybta waa inaan keeno transfer waa inaan idhaahdo marka meeshaas transferka ayaan taabanayaa kabacdina swede ayaan dooranayaa kabacdina waxaan dhahayaa all kadibna waa soo xawilayaa hadda sida arkaysaan lacagtani waxay ii imaanaysaa all waxay ii imaanaysaa meesha ayay ii imaanaysaa okay waxay isku noqotay 42.29 okay qiimaha marka aniga 0.3 ayaan ku gadanayaa because waxaan aaminsanahay lacagtan maadaama maalmihii lasoo dhaafay ay xoogaa dhacsaneed inay xoogaa hadda kor usoo yara kici karto haddaan rabana qiimaha waan ku gadi karaa marka sida aan rabo ayaa yeeli karaa kabacdina waxaan leeyahay haddaan rabo inaan isla hadda gado automatic waxaan ku dooranayaa qiimahaas hadda ay marayso in the marketka ay marayso kadib waxaan dhihi karaa sell wuxuu ku weydiinaa passwordkaaga oo tradingka ah inaad geliso kadibna saa arkaysaan orderka ayay gashay sell limitedka xoogaa qiimihii ayaa hoos soo yara dhacay marka laakiin waxaan ahay dadka ugu horeeyo oo lacagtooda ay gadmi doonto daqiiqadaha soo socdo waan iska sugayaa kadibna markii qiimahaas ay imaato ayay gadmaysaa insha allahu tacaala marka videogan insha allah saas ayaan kusoo gabagabeyneynaa video ayaan ka sameynay videogaas daawada sida sweet walletka loo soo dejisto inta aadan wax kale ka fikirin horta waa inaad marka u horeysa sweet wallet waa inaad leedahay oo ah midkan waa inaad leedahay midkaas marka midkaas soo dejiso haddii aad tahay dadka midka hore un haysta haddaa midkaas cusub aa haysatidna waa okay waaye marka videogan ayaa daawanaysa insha allah bilow ilaa dhammaad kadibna waa xiinaysaa haddii aan sidoo kaleeto aadan lahayn appka ama iska tirtirtay ama aadan lahayn appka sweet coin hadda appkeeda 100% waa lagu kalsoonaan karaa sidoo kale linkiga waxaan soo dhigi doonaa referral linkigayga raac insha allah kabacdina isdiiwaan geliya appka soo dejista aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkana like noo saara subscribe-kana hanaga iloobina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu